video cusub. magacayga waa Sacud, meesha iga daawanaysiina waa Suusun Qaabi. maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo waxa kale oo keena cunuga inuu oo xanaaqiisa bato ama hyper uu noqdo ama oo maxaa dhihi jira uu wax maqli waayo oo dabeecadda ka xumaato. waxa kale oo keeni kara waxaa waaye cuntada cunuga uu cunaayo. cuntooyinka qaarkooda u keeni kara cunuga inuu oo dabeecadiisa xumaato. usually anaga waxaa dhahnaa maxaa dhihi jiray sokorta cunuga hadduu cuno waxay hyper ka dhigaysaa, laakiin runta waxaa waaye sokorta ma keento hyper in cunuga noqdo, laakiin maxaa dhihi jiray healthy ma aha, ma u fiican cayaalka in la siiyo. waxa keeni karo cunuga in uu dabeecadiisa xumaato waxa waaye in uu blood sugarkiisa hoos noqdo ama maxaa dhihi jiray blood glucose-kiisa inuu hoos noqdo. qofka markii oo blood glucose-kiisa hoos uu noqdo, adrenaline gland wuxuu soo daynaa hormone. hormonekaasna markuu soo daayo waxaa la dhahaa hypoglycemia. waxaasuu keenaya. soo marka maxaa dhihi jira meeshaan igu soo sawirkiisa ani soo saara wuxuu ku yaalaa kelida korkeeda. sawirkiisa insha Allah soo saaraya. soo marka waxaas u keeni karo cunug inuu dabeecadda ka xumaato. maxaa dhihi jiray isheeg also wax u keenayo cunuga xanaaqiisa inuu bato iyo baahidiisa badato waxaa waaye blood glucose-kiisa oo yaraado. maxaa dhihi jiray isheeg marka hadaa oo kala cunuga markasta ku dadaashid inuu baahi aanan qabanin, maxaa dhihi jiray isheeg way yaraanaysaa camal. maxaa dhihi jiray inuu dabeecadiisa bedelmato. also waxaa keeno maxaa dhihi jiray waxyaalaha oo cuntooyinka lagu daro oo artificial additives kala dhahayo oo waxaa waaye camal wax oo bini'aadanka ay sameeyeen. hadda camal marmar markii cayaalka oo kaniiniyada maxaa dhahaa daawooyinkooda macaan laga dhigaayo waxaa lagu daraa wax artificial oo oo nature-ka laga keenin oo bini'aadan sameeyey. so kuwaasna way keeni karaan. waliba kuwa oo chemicalska maxaa dhihi jiray zaaid inay u ogaatid tahay. usually waxaa lagu shubaa cerealka ku jiraan, juiceyaasha cayaalka ku jiraan, medicineska ku jiraan. so marka hadaa oo isleedahay daawo cunugaaga uu qaadanayo chemical artificial ku jiro, maxaa dhihi jiray isheeg markaas dhakhtarka waa la hadli kartaa ama wax kale si loogu bedelo. also waxaa fiican cunuga in uu helo omega 3. omega 3 waxaa laga helaa salmonka, waxaa laga helaa tuunaha iyo waxaa laga helaa maxaa dhihi jiray kaluumaha most of the time. so marka maxaa dhihi jiray ayda waxaa cunuga siini kartaa kaluun caadi, kaluunka iyo waxyaalahaas u karin karta, ama waxaa jiraan supplements oo cayaalka la siiyo oo omega 3 usually Amazon meelahaas oo ka heli karta. marka kuwaasaa siin kartaa liano maskaxda way u baahan tahay omega 3 wuu fiican yahay. marka si oo kala dadaashid cunugaaga in uusan maxaa dhihi jiray dabeecadihiisa xumaanin, ay hyper uusan noqonin, uu maxaa dhihi jiray isheeg waxyaalaha marka cunuga tarbiyeynaysid oo ka hor istaagi kara waa cunuga hadduu oo dabeecadiisa xunta oo markasta iska oonayo adigana maxaa dhihi jiray maxaa dhihi jiray wax si fiican ma u tarbiyeyn kartid. marka waa inaa oo ka hortagtid horta wixii oo keeni karo markaasa oo ku fududaanay cunuga inaad tarbiyeysid. marka cuntada see oo maxaa dhihi jiray ku ogaan kartaa cunuga waxa oo hyperka ku noqonayo iyo waxa kale cuntooyinkaas siinoosid maxaa dhihi jiray
like buuga wuxuu suggest gareena in ama diary haysatid cunugaaga camal 1 week cuntadaas ku fiirisid hadduu cuntadaas tahay waxa hyperka ka dhigooyo then waa ka daanay mid kale oo bilaabay. laakiin haddaadan oo like aadan la soconin waxa keenayo way kugu adkaanaysaa inaa ogaatid. ama waxaa sameyn kartaa nutritionist jiraan dad oo cuntada ku takhasusay u qaban kartaa. I guess like waxaa easy inaa cuntada cunuga oo fiirisid oo maxaa la dhihi jiray isheeg like weekly marba mid oo ku tijaabsid si u ogaatid like haddii cuntada noocaas tahay in kale. also maxaa la dhihi jiray sokorta like ma keento maxaa la dhihi jiray cunuga inuu hyper noqdo. ana hataa weligay saas u haystaba laakiin ma keento sokorta waxaa keenaan waxyaalaha kale kasoo hadalnay. I hope inaa wax ka faa'iideen insha Allah. ha ilaabina subscribe saara and then like saara hadaa video ka heshay. comment hoos ku soo qor hadaa su'aal qabtid ama wax dhahay fahmin ama maxaa la dhihi jiray sheeg any like waxa hadaa ku daraysid topica maxaa la dhihi jiray la share gareey dadka kale oo waalidiinta si oo ga faa'iideystaan insha Allah. waxaa rajeynayaa in maxaa la dhihi jiray sheeg videoga wax ka faa'iidaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.